بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal kusoo dhawaada kuwiin hajsoom waan idin salaamay meel walbo aad dunida ka joogtaan iyo xili walbo ay idin tahay. waxaan idin rajaynayaa kheyr iyo caafimaad dhammaantiina. ramadaan mubaarak. أهلا حياك يا شهر انت رياك يا محلى مزاياك يا رمضان. asxaabteyda qaaliga ah soo dhawaada. waxaan rabaa inaan sameysto shurbad. ujeedi meeshan waxaa ku haystaa waa hilib eri ah. meeshan waxaa ku haystaa xawaaji. waxaa ku haystaa barbarooni shiidan iyo kari masala, maraq digaag iyo basbaas. meeshan waxaa ku haystaa waa boorash 2 koob ilaa 3 koob ayaa isticmaali doonaa. sidoo kaleeto filfil madow ayaa inta ku haystaa, yaanyo, basal, tuun, kabsar caleen iyo waraq qaar iyo hadhoodii jab sanjabiil ayaa kusoo daraya. waan soo iloobay. hadda asxaabe digsiga ayaan dabka soo saaray. waxaan ku ridayaa waa hilibka oo dhan. kadibna waxaan ku shubi doonaa biyo badan oo maasha Allah sidii hilibka uu noogu bislaado uu u turturo oo si fiican shurbada hadhow shurbo macaan badan ay noogu soo baxdo. meesha aan boorashka ka isticmaalayo waxaa isticmaali kartaa qamadiga caadiga ah. biyaa ku radinaysaa haweenkii biyo qandac subaxdii dhanna dabkaa saaraysaa. kadibna hilibkaa ku ridee. kadibna xawaajiyaashiisa ku daree maasha Allah. hadda hilibka intoo noo soo badbadaayo kabsartii iyo yaanyadii iyo basashii iyo tuuntii ayaa isku shiidaneynaa insha Allah. waa kana maasha Allah waa isku soo shiiday. hadeertaan hilibkii noo soo badbaday. hilibka xumbada kor dhanna waan ka qaaday. sidaas ula socda. hadda waxaan ku darayaa waa yaanyada ayaan ku shubayaa. yaanyada markaa ku shubo waxaan kusoo darayaa sanjabiishii iyo warqaarkii. hadaa haysanin waa iska dhaafi kartaa, qasab maahan, laakiin waxaa waaye caraf ay u yeelaysaa cuntada. hadda boorashkii ayaa kusoo daray 3 koob ayaa kusoo shubay. maasha Allah aadna muu culso shurbada, aadna khafiif muu ahan. waa dhexdhexaad, sidaasaana fiican. caloosha waxaa loo baahan yahay wax xoogaa oo culeys lehen in la cuno. hadda xawaajiyaashii dhanaa kusoo daray. xawaajiyaashii markaa kusoo daro oo waa walaaqaya. waa cusbaa ku daraa, filfilaa ku daraa, filfil madow. kadib waa iska daboolaa ugu yaraan 2 saac. 2 saac kadib waa kana asxaabe waxaan kusoo daraa hadda xawaaji yar, waa xawaajiga bariiska. kadibna waa walaaqaya, dabkana waan ka daminayaa ileen caraftiisa dhan horay ayaan ugu soo daray. qiiq ayaa meesha ka socda. waa ujeedin digsiga siduu dabka maanta dhan u saarnayo waaye. waa kana hadeertaaneeti waxaan gali doonaa qaabka rootiga aan u sameysanayo. rootigan ayaa sameysaneynaa waa rooti macaan ama rooti malab, qof walba siduu u yaqaano. caano ayaa meesha kusoo shubtay. waxaan ku darayaa sokor ayaa ku daray wax yar, 1 qaando weyn camal. kadib waxaan ku darayaa waa leebito ama khamiiriso, 2 qaando oo yaryariis ayaa ku darayaa. waxaan ku darayaa wax yar cusbo. waxaa kusoo darayaa sidoo kaleeto xoogaa yar oo bur ah. kadibna waan qasayaa. xoogaa ayaa dhigeynaa. aniga hadda wax badan ayaa dhigay. waa mashquulay xoogaa yar. sidaas darteed hadda leebitadii iyo caanihii iyo cusbadii iyo sokortii ayaa isku qasnay. kadibna burkii ayaa kusoo darayaa insha Allah. burka markaa kusoo daro ayaa ila arkeysiin sida aan u rabo. waa kana hadda xoogaa bur ayaa kusoo daray. haddana bur kale ayaa ku darayaa cabaar markaasaas isugu qaso. kadibna waxaa waaye waan daboolaa 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ayaa loogu talagalay cajiinkaneeti. kadibna markaa burkaaga kala ku darsadidna hore inaad ka isticmaashid. laakiin aniga mashquul yaraa howlo kale aan qabanayay. ugu yaraan 40 daqiiqo oo maleynayo wuu iska yaalay. kadib ayaa burkii iyo saliida dib ugu daray. saas ula socda asxaabteyda qaaliga soo dhawaada. waxaan leeyahay mar labaad ramadaan mubaarak. alxamdulillaah. hal beriyaa dhamaatay. inta dhimana ilaahay caafimaad ha noogu dhameeyo iyo cimri. kuwii laga aqbalana ramadaantooda ilaah naga dhigo, aamiin yaa rab. hadda waa kana waa soo daboolayaa. balaastigtan ayaa kusoo daboolayaa. saxanaa ku dabooli kartaa, wax alla waxaa rabtid ku daboolo insha Allah. saan ayaan kusoo wadayaa. kadibna
waa isku soo laabaneynaa. Waxaa arki doontiin sida haddana mar labaad uu cajiimayo insha Allah. waa kana asxaabey cajiinkii wuu soo qamiir. meeshan waxaa kastaa waa saliid cadeey, saliidda rabtida isticmaal karta, saliid saytuun, subag ama batar. hadda waxaan kusoo darayaa burka hadda waxaan ku darayaa waa 3 koob ilaa 3 koob ilaa 2 koob iyo bar camal ayuu ka qaadanaya. hadda waxaan kusoo dhex daray waa saliidi, haddana burki ayaa dib ugu shubayaa. markaa ku shubo koley qof walba qaabo wax walba u khastaa. aniga saana u khastaa. rootiganeeti ukun dadka ku daraan, qaybta cadda ayaa lagu daraa, qaybta gaduudanne ama qaybta jaalahane koraa laga mariyaa. laakiin ani wax ukun kuma darin, saas ula socda. hadhowdiine kor waxaan ka marin doonaa, waa arki doontiin hadduu ilaa idmo. saana usoo cajiimaya asxaabe, waa isku soo laabaneynaa. sida si fiican loo cajiimo u baahan yahay. haddaa rabtid cajiinka inaa ku qurux badnaado oo cajiin bush kaaga soo baxo, si fiican u cajiin. maasha Allah. meeshan waxaa ku haystaa waa farmaajada kiiri ama jubna kiiri, nooca la noocaysatid isticmaal. saxankan ayaa kusoo jarjaray. meeshan waxaan soo saaray saxankii foornada la gelin lahaa. waxaan soo saaray aluminium ayaan saxan ku duubay, kadib saxankii ayaa ka bixiyey. aluminium keligiis ayaa meesha soo saartay. waxaan rabaa inaan ka dhigo qaab bileed insha Allah. saas ayaan kasoo bilaabayaa, gees ilaa gees. dhowr xabaan ii tusinaa. farmaajada marka ugu horeysa gacanta ayaa ku rootiga cajiinka marka hore fidi, gacantaada ku fidi. kadibna waa ujeedin sidaan aniga hadda yeelayo. farmaajada dhexgeli, kadib afka si fiican uga xir, kadibna gacantaada ku wareeji sida calaamadii dhan ee u baaba'do oo rootiga si kuuskuus oo qurux badan uu uga soo baxo insha Allah biidnillaahi kariim. waa kana asxaabe maasha Allah. waxaan jeclaystay afurkeyga qayb ka mid ah inaan niila wadaago, oo waxaan rajeynaya inaad ka faa'iideysan doontiin sidaa u sameysto. aniga wax badan ma sameeyo. waxyaabo qaar intii markaaseti waa la cuni karaa isdhahayo. intaan aan hadda sameeyaa waxaaba aaminsanahay inuu tirada ka badan yahay, ooba waaba la cuni waaye. alxamdulilah, ilaah ayaa mahadda iska leh oo waxaan cunno iyo waxaan cabno na siiye, noo saqiray. intaan haysaninna ilaahay subxaana qaadir ha u siiyo, hana u saqiro. anagana ilaahay hanoo barakeeyo. waa kana asxaabay safka koowaad waa soo dhameeyey. haddana safkii labaad ayaan saarayaa. ujeediin safka labaad ayaa haddana soo sameynayaa. markii haddana safka labaad aan soo dhameeyo, waxaan dhigi doonaa 5 daqiiqo bis. 5 daqiiqo markaa soo dhigo horaa foornada ka gelinaa. ileen maanta dhan oo qamiiraya soo ma bis kista, maadaama aan saan u soo kuuskuusay hawadii iyo wixii ka baxay. waa kana asxaabeed waxaan marinayaa caano. waa idin sheegay haddaa rabtiin waxaa marsan kartiin ukun, laakiin aniga ukunta ma jecli, sidaas darteed caano lee marinayaa. foornadana iska ilaaliya. haddaa mashquulsan tahay wax foorna ha gashanin. aniga hadda rootiga xoogaa yar waa iska iloobi, subxaan Allah. mar ahaynaa soo xasuustay rootigiioo wax yar dabka dafay, laakiin alxamdulilah kuli ma gubanin. sidaanuu kusoo baxay, hal dhinac bis oo ka gubtay. maasha Allah. hadda saxankaa soo saaray. ani waxaan ku shubayaa waa caano macaan. caano macaanka anaa guriga ku samaystay. sidoo kale janalku wuu ku jiraa asiga oo la sameynayo, waa ka fiirin kartiin haddaa nugu cusub tahay insha Allah. hadda sidaan ayaa ugu soo bilbilayaa. waa soo dhameeyey maasha Allah. kadib waxaa sameeyey xidig oo qarfo yar ayaa waxaa ku sawiray xidig. maasha Allah ayuu kusoo baxay. kadibna waxaan idin tusi doonaa sida miiska aan u diyaariyey ama miiska aan u afurka u saaray insha Allah biidnillaahi kariim. ilaahay hanoo daaweeyo. ilaahay kuwii caafimaad mar walba ku afuro ilaah naga dhigo. maasha Allah. waa kana miiska ugu dambeyntii bajiyo rootigina waa kana ujeedin xidigta saasa u soo saaray. bur iyo sambuus iyo shurbad le waaye, iyo cabitaan iyo yogurt kaaseti iyo biyo caadi iyo timir. alxamdulilah, ilaah ayaa mahad iska leh oo nimcadana siiye. ilaah oo adaana siiye noo saa'idi. intaan haysaninna u saqir. haddaa videogan ka heshin fadlan like ii saara. haddaa ra'yi wadatiinna commentiga iigu dhaafa. inta aan videogan video lamid ah ku kulmeyno, waxaan idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaas iyo
amaana allah.